nabaddu waa shay fiicane nabadgelyo korkaaga ha ahaato kusoo dhawow barashada xisaabta magacayu daawade waa shini gestir waxaan weli ku guda jirnaa barashada noocyada shaxanada loo yaqaano saddexaad dimaale oo luqadda englishka lagu yiraahdo three dimensional figures waxaa sidoo kale luqadda englishka lagu yiraahdaa solid figures luqadeena hooye waxaa sidoo kale lagu yiraahdaa shaxanada adkaha ah shaxanada adkaha waa shaxanada lagu cabiro mugga ama volumeka sidaa darteed daawade waxaan muuqaalkii ka horeeyay kusoo baranay oo aan kusoo falanqeynay in shaxanada adkaha ama saddex adimaalayaasha ay yihiin shaxano u qaybsama laba nooc nooca koowaad waxaa la yidhaahdaa polyhedron waxaa luqadda hooye lagu yidhaahdaa salxaale nooca labaadna waxaa luqadda ingilishka lagu yidhaahdaa non polyhedron luqadda hooye waxaa lagu yidhaahdaa salxaale ma ahe waxaan markaa muuqaalkii ka horeeyey kusoo falanqeynay oo aan kusoo baranay shaxanada loo yaqaano salxaale ama polyhedron sida halkan kaaga muuqata shaxanadan waa shaxanada loo yaqaano saddexaad dimaalayaasha nooca polyhedron waa nooca koobaad waa nooca salxaale salxaale waa shaxanada dhammaan halkan kaaga muuqdo shaxanadan ayaa waxaa la yidhaahdaa salxaale salkoodu wuxuu ka samaysan yahay geesoole salkoodu waa geesoole intaasi waa muhiim inaad taqaanid daawada markaa caawa waxaan muuqaalkan ku falanqeynaynaa oo aan ku baranaynaa nooca labaad ee la yidhaahdo luqadda ingiliishka non polyhedron af soomaaliya waxaa lagu yidhaahdaa salxaale ma ahe bal noocan aan isagana falanqeyne kusoo dhawow noocani saan soo sheegay waxaa luqadda ingilishka lagu yidhaahdaa non polyhedron luqadeena hooye waxaa lagu yidhaahdaa salxaale ma ahe salxaale ma ahe ama non polyhedron waa saddex adimaalayaal ay salkoodu iyo wejiyadooduba aynan ahayn geesoole ma aha geesoole salkooda iyo wejiyadooda sidii shaxmadii hore aan kusoo baranay muuqaalkii hore kuwaasoo magacooda la yidhaahdo salxaale shaxanada salxaale ma ahe ka koowaad waxaa la yidhaahdaa cylinder luqadda ingiliishka luqadda hooye waxaa lagu yidhaahdaa dhululubo dhululubo waa shaxanka halkan inooga muuqda haddii aan tusaale soo qaato shaxanka dhululubo tusaalaha ugu fiican waa daasadda caananidooda daasadda caananidooda sheebkeeda ayaa waxaa la yidhaahdaa luqadda hooye dhululubo ama cylinder dhululubo waxay leedahay two faces laba weji waa wejigan iyo wejiga gadaalka ah waxay leedahay two faces facekan waa faceka salk weyn waa facekaas circleka ah iyo facekaas kan kore labadaa weji ayay leedahay iga raali ahaado waxay leedahay zero ages wax dhinacyaha malaha wax dhinacyo ah malaha waxay kaloo leedahay zero vertex wax fiin ah malaha gees fiiqan malaha kaasi waxa weeyaan waa dhululubo waxaan u gudagelaynaa shaxanka labaad ee ka midka ah shaxanada salxaale ma ahayaasha waxaa la yidhahdaa shaxankan sphere waxaa luqadda hooye lagu yidhahdaa kubad ayaa lagu yidhahdaa luqadda hooyo wuxuu u eg yahay sida uu adduunka u samaysan yahay shaxankani waa shaxan muhiim ah wuxuu leeyahay zero face wax wejiha malaha zero vertex wax fiin ah malaha iyo zero ages wax dhinacana malaha shaxankan saddexaad waxaa luqadda ingilishka lagu yidhahdaa corn waxaa luqadda hooye lagu yidhahdaa toobin shaxanka toobin waa shaxanka halkan kaaga muuqda wuxuu leeyahay one face hal weji oo waa wejiga uu ku fadhiyo wuxuu kale leeyahay one vertex hal fiin ayuu leeyahay fiintu waxa weeyaan waa fiiqaas kaas ayaa la yidhahdaa fiin hal fiin ayuu leeyahay iyo zero ages iyo wax dhinacahana malaha daawade saddexdan shaxan ayaa waxaa la yidhaahdaa non polyhedron salxaale
ma ahe. hadda waxaan rajaynayaa inaad fahansan tahay oo aad kala saari kartid shaxanada loo yaqaano saddex adimaalayaasha ee luqadda ingiriiska lagu yiraahdo three-dimensional figures in ay u kala baxaan laba nooc, non-polyhedron iyo polyhedron. luqadda hooye lagu yiraahdo salxaale iyo salxaale ma ahe. kuwa salxaalaha ah waa kuwa leh salkoodu iyo wejigoodu ay yihiin geesoole. salxaale ma ahayaashuna waa shaxanada salkoodu iyo geesahoodu toona ayn ahayn shaxanada geesoolayaasha. intaas hadday ku kala cad yihiin waad fahantay. daawade muuqaalka xiga waxaan ku baran doonaa shaxan walba oo saddex adimaale ah sida loo soo helo muggiisa ama volumekiisa. inta aan ku kulmi doono muuqaalkaas waxaan idiinsi dhaafayaa nabadgelyo korkiina ha ahaato.